deegaanada dhulkayga aanun ku daabin calan awaalo on dulbaban dankiigsan maayo oo gumaysi dooni maayo qabyaala dooramayo astaamaha iyo taalooyinka qaranku waxay u taagan yihiin halgan iyo sooyaal soo jireen ahaa oo ku suntan gobonimo u dirir iyo gumaysi ka dhiidhin soo celinta taalooyinkani waxay halgan hor ku abuurayaan maskaxda jiilasha soo kacaya oo aad ugu hamuun qaba inay arkaan hormuud ay kaga daydaan halganka casriga ah ee qarniga 21aad ay Soomaalidu ugu jirto soo celinta qarankeedii iyo iska dhicinta faragelinta shisheeye ee aan wax badan dhaabin midii xilligii gumaystaha inuu ardayga Soomaaliyeed subax kasta hoos maro astaamaha halgamayaashii qaranka sida Axmed Guray Sayid Maxamed Xaawo Taako ama SWL waxay xasuusinaysaa mas'uuliyadda dalkiisa ka saaran inuu halgan nooc walba u galo kana jawaabo baaq kasta oo ciidda iyo dhulka hooyo uga yimaada magacaygu waa Maxamuud Maxamed Cartan oo kamid ah ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho waxaan rabaa maanta waxaan ka dhaho taalooyinka Muqdisho oo la soo celiyay taalooyinka waa bilicda ugu qurux badan caasimadda haddii la sameeyo taalooyin ومغني جرني تالوين على سمي سيد محمد عبد الله حسن على سمي تالوين كله حاوتاكو لكن وليين كم سوغاري فرحد وين نوتها إنا عرقنا تالوين كي وطن كتيب لو سعلي والله برسمات كي واي هران وصل دعاي ما دام أهل جالس أنا عارفين لكن تاريخ أهان سكولات كي مثل نقول لك نقول شيء كي فرحد وين أدري مركز ديب أو داود الملعدي مثل أنا عارفين عفتان صباحي وحنا صباحي أنا تعلدان أو لما رفر إماده وهذا ميت سيد كان تجا أو ميت دحتور أن تجا أنا أنت ماشي أسوأل والله كله تبغى كده أنت وأنا هرمر ودنك وجاري واي هرمر ودنك وجاري واي أنا جوحن جوبجو ومركي لدي مركي معنا لدي أو بالغيسنا معنا تالوين كم كله بالغيسنا جوبجو وها وأوجي من إسلام معنا وحن دبي وصل لابد أنا درات مدانها درود بالها لها ولاني علا دبالي وشدي taalooyinkani ka sokow taariikhda hodanka ah ee xambaarsan yihiin waxay bilicsanaan ku soo kordhinayaan caasimadda ummadda ee Muqdisho dhismaha taalooyinkani waxa uu ka dhigan yahay Soomaaliya oo dhismaysa dhinac walba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xariga ka jiray taalooyinkani ayaa waxa uu mid u dul istaagay taariikhda bidhaamaysa ee halyeeyadan isagoo tilmaamay muhiimadda astaamaha iyo casharada maguurtada ah ee shacabka Soomaaliyeed ay waqti kasta kala bixi karaan dad walba wuxuu leeyahay astaan wuxuu leeyahay taariikh iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeyaha yiraahdaan ama hero ha yiraahdaan oo dhinac walba ah runtii annagu hiirooyadeenna waa badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinkan u sameynay kuwa kalena inaan u sameyno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada wax badan u geysta oo wanaaga dalkan runtii waxaan aragnaa sababtaan u xuseenno aan ugu sameynayn taalooyinka ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray intaas aan qarannimada aan haysanay qarannimadeenna ay xoog lahayd midnimadeenna ay xoog lahayd dadkeenna wadaniyadoodii ay xoog lahayd iyo midnimadoodii waxaan gaarnay meel annagu aan Afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siino kuwa naga hooseeya kuwa raadinaya inay xorriyadooda helaan oo aan tababarro u sameyno aan dhaqaale ku siino si ay xorriyadooda u helaan kuwa is haysta oo dagaalada ka dhaxeeyana inaan nabad dhex geenno ciidan dhex geenno heshiisna ka dhex sameyno intaasna waxaan ku helnay waxa weeye meesha aan ka taagnayn Afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka meeshaas way meeshaan u socono marka dawladdan waxay u socotaa intaas u socotaa madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay si ambaqaadaan halgankii halyeeyadooda kana miri dhaliyaan hiigsiga ay naftooda u hureen oo ku salaysnaa midnimo iyo wax wada qaybsi iyo inay noqdaan dal iyo dad miisaankooda ku leh dunida dhalinyarada marka waxa weeye dhalinyaradii hore idin kama fiicnayn laakiin waa idinka wadanaysanaayeen aan oran karaa ama maybe waa idinka dhiiranaayeen laakiin idin kama aqoon badnayn waxay fahamsanaayeen sida kaliya oo gumaysi looga adkaan karo inay ahayd formulahaas aan sheegay maantana annagu haddaan nahay dawladdii waa ku dhiirigelinaynaa dhalinyarada cid walba muwaadin waa ku dhiirigelinaynaa waan ku faanaynaa taariikhdeennii hore aan soo marnay oo ahayd intaasaan sheegay
maxamed cabdi yuusuf oo ra'iisul wasaare ka soo noqday mid ka mid ah xukuumadihii dalka soo maray kana soo jeeda qoys kaalin muhiim ah ka soo qaatay halganka xorriyadda ayaa ka sheekeeyay taariikhda taalooyinkan maadaama allaha u naxariistay cabdi yuusuf oo ahaa aabaha mudane maxamed cabdi yuusuf uu ka mid ahaa geesiyiintii ku shahiiday dhacdadii dhagax tuur. wax ku faraxsanahay waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo gartay in taariikhda ummadda soo celiyaan waa waajibaadkooda laakiin waa ku hambalyeynayna waana ku taageeraynaa talada waa dhaqanka Soomaaliyeed mariyay qabtay midna taariikhda laga sheegay waa soo nooleyn la soo nooleeyay taariikhdii halganka ummadda Soomaaliyeed marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan ku baaqayaa inay caqliga u noqdaan dadka xorriyadda u dhinto qarannimada inay ilaaliyaan qabiilka iska ilaaliyaan iyo qurunka khaasatan dhalinyarada ayaa laga rabaa inay la dagaalanto qabyaaladda waxa future-kooda la dilayaa oo lagu cayaaraya oo la isku diraya waxa weeye ayaga weeye. taalooyinkan waxaa lagu dhisay barnaamijka isxilqaan oo uu sanadkii hore iclaamiyay madaxweyne Farmaajo. isxilqaan waa wax wada qabsi iyo in muwaadin walba oo Soomaaliyeed awoodiisa ku darsado dhismaha dalka. deegaanada dhulkayga aanun ku daabin calan awaalo on dulbaban dankiigsanayo oo gumaysi dooni maayo qabyaala dooramayo